kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka hadaan oo kale shanta TV aad ka daawataan qodobada warkeenana waxaa kamid ah Imaaraadka oo wada qorshe ay xidhiidh ugu sameynayaan Israa'iil iyo Soomaaliya iyo halis weyn oo ka soo wajahaysa xidhiidh ay Soomaaliya la yeelato dowladda Israa'iil khilaaf xooggan oo ka dhex qarxay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen kadib markii ra'iisul wasaare Xamse diiday dalab ka yimid dhinaca hogaamiyaha Koonfur Galbeed iyo xildhibaanada deegaan ahaan laga soo doortay Koonfur Galbeed oo ka shaqeynaya inayna codka kalsoonida siinin ra'iisul wasaare Xamse iyo Soomaaliya oo shaaca laga qaaday haddii ay la soo baxdo shidaalkeeda inay sanad walba ka heli doonto 84 bilyan qodobadaas iyo kuwa kale oo intaasi ka faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan warkeena aynu ku bilowno wararkeena dowladda Israa'iil ayaa rajo weyn ka qabta xidhiidh cusub oo ay la yeelato Soomaaliya iyadoo ka faa'iideysanaysa sida ay qortay warbaahinta Israa'iil kulan hore oo dhexmaray ra'iisul wasaarihii hore Israa'iil iyo madaxweynaha imika ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waqtigii uu ahaa madaxweynihii sideedaad xilligaasi oo la sheegay inay sida soo qaadeen arrimo la xidhiidha in la yegleelo xidhiidh u dhexeeya Soomaaliya iyo Israa'iil madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa intuu ku sugan yahay dalka Isutaga Imaaraadka waxyaabaha ay dowladda Imaaraadka ku soo qaaday waxaa ka mid inuu Imaaraadku garwadeen ka noqdo xidhiidh dhexmara Soomaaliya iyo Israa'iil safarka oo muddo qaatay ay durba dhaliya hadal hayn badan waxaana soo baxaya warar sheegaya in Soomaaliya ay xidhiidh la samaysan doonto markii ugu horeysay taariikhda dowladda Israa'iil oo si weyn cadow ugu ah dhammaan dalalka Islaamka ee caalamka diblomaasi Soomaaliya oo u waramay wargeyska The Times of Israel ayaa arrintan rajo wanaagsan ka muujiyay wargeysku wuxuu boggiisa hore ku daabacay bil ka hor warbixin uu kaga hadlayo rajada laga qabo xidhiidh markii ugu horeysay dhexmara Soomaaliya iyo Israa'iil maadaama uu talada ku guuleystay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo xilligii uu dalka xukumayay la kulmay ra'iisul wasaarihii hore ee Israa'iil Imaaraadka Carabta ayaa ahaa dalkii Carbeed ugu horeeyay ee xidhiidh la sameeyay Israa'iil waxayna u badan tahay Soomaaliya iyo Israa'iil ay dowladda Imaaraadku ka shaqeynayso xidhiidhkooda iyo inay yeeshaan cilaaqaad cusub dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta oo ka faa'iideysanaysa saaxiibtinimada gaarka ee kala dhaxaysa dowladda federaalka Soomaaliya oo hogaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud waxay doonaysaa inay ku qalqaalayso xukuumadda Muqdisho inay xidhiidh la yeelato xukuumadda Tel Aviv arrintan Imaaraadka lama oga danta ugu jirta waxa ay horey Israa'iil iyo Imaaraadku u galeen heshiis la isugu soo dhaweynayo Israa'iil iyo dalalka muslimka dalalka Islaamka gaar ahaan kuwa ku yaala gobolka Geeska Afrika ee Soomaaliya ugu horeyso Israa'iil waxay dan weyn ka leedahay marka la joogo Afrika si gaar ah Soomaaliya ay aaminsan tahay inay arrimo badan kaga xidhan yihiin waxyaabaha Israa'iil ku andacoonayso inay xilligan ugu soo gabanayso xidhiidhka cusub ee la yeelanayso Soomaaliya waxaa ka mid ah inay ka caawin doonto dhibtirka argagixisada maadaama surdoonka Yuhuudda lagu tilmaamay kuwa ugu tayada sareeya caalamka oo ay aaminsan yihiin inay gacan siin karaan Soomaaliya balse Soomaaliya ayaa ka dhaxli karta cadaawad iyo rabshadahan dhammaad lahayn xidhiidh ay la yeelato dalka Israa'iil iyadoo aan la ogeyn sida uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u aqbali doono inay Soomaaliya xidhiidh la yeelato wadanka Israa'iil ee duulaanka ku haya dhammaan dalalka Islaamka ee caalamka gaar ahaan dhulka Falastiiniyiinta ee Israa'iil inta badan la wareegtay qadiyada daanta galbeed ayay dalalka Islaamku ka qabaan hal aragti oo ah in Israa'iil ay xoog ku haysato dhulkaasi loona baahan yahay inay faraha kala baxdo dhulka Falastiiniyiinta oo ay faragelinta ka dayso muslimiinta ku nool halkaasi oo ay dhibaato weyn ku hayaan Yuhuuddu haddii ay Soomaaliya aqbasho xidhiidh ay la yeelato Israa'iil waxay caddayn u tahay inay si toos ah u garab istaagtay duulaanka ay Israa'iil ku hayso dhulka Falastiiniyiinta balse madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ah nin si weyn ula socda arrimaha siyaasadda caalamka isla markaana fahansan taariikhdii hore ee dunida iyo tan xilligan lagu jiro ayay dad badan aaminsan yihiin inuusan ogolaan doonin xidhiidh dhexmara Soomaaliya iyo Israa'iil hase yeeshee arrinta shakiga weyn dhalisay ayaa ah in dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta oo noqotay dalkii ugu horeeyay ee Carbeed ee Israa'iil xidhiidh la yeesha haddana xidhiidh dhow la leh Soomaaliya inay garwadeen ka noqon doonaan cilaaqaadka la doonayo in Soomaaliya iyo Israa'iil la dhex dhigo wafdiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee booqashada ku tagay magaalada Abu Dhabi ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa safarkooda oo lagu talagalay inuu 2 maalin qaato waxaa lagu daray waqti dheer ah taasi oo shaki weyn ka dhalisay warbaahinta ka howlgasha gudaha Soomaaliya iyo tan caalamiga oo hadda si weyn uga faalloonaysa waxyaabaha uu madaxweynuhu halkaasi u joogo iyo in arrimaha uu ka shaqeynayo ay ku jiraan soo celinta xidhiidhka Soomaaliya iyo Israa'iil khilaaf xooggan ayaa ka dhex qarxay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur
koonfur galbeed Cabdicasiis Laftagareen iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Khilaafka ayaa yimid kadib markii madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Laftagareen uu ergo u dirsaday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre isagoo ka dalbaday in shakhsiyaad uu Laftagareen gadaal ka riixayo lagu soo daro golaha xukuumadda cusub ee uu soo dhisi doono ra'iisul wasaare Xamse. Ergada uu madaxweyne Laftagareen u dirsaday ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya waxaa horbooday taliyihii hore ee ciidanka asluubta Soomaaliya Generaal Mahad, waxaana kala hadleen ra'iisul wasaaraha inuu ku soo daro golaha wasiirada xubno uu wato hogaamiyaha koonfur galbeed Cabdicasiis Laftagareen. Laftagareen ayaa sheegay inuu doonayo in laga talageliyo xubnaha deegaan ahaan ka imanaya koonfur galbeed ee ku biiraya golaha cusub ee wasiirada Soomaaliya, halka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse ay aaminsan yihiin inay iyagu soo xulaan shakhsiyaadka matalaya koonfur galbeed oo lagu sharfi doono kuraastaasi. Raggii siyaasad ahaan la soo halgamay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee deegaan ahaan ka soo jeeda koonfur galbeed, iyadoo sidoo kale laga talagelin doono agaasimaha madaxtooyada iyo gudoomiyaha golaha shacabka oo labaduba deegaan ahaan ka soo jeeda koonfur galbeed. Hase yeeshee madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Cabdicasiis Laftagareen oo aan caaga badan ku taagnayn kadib guuldaradii 15 May lagaga guuleystay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay si weyn isaga dhawaayeen, ayaa wuxuu doonayaa inuu xubno ku yeesho golaha wasiirada si halkaasi uu la socdo wixii dhaqdhaqaaq ah ee ka dhanaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee golaha wasiiradu ay qorsheynayaan. Danta ugu weyn uu ka leeyahay hogaamiyaha koonfur galbeed inuu xubno ku yeesho golaha wasiirada ayaa ah inay ka hortagaan dhaqdhaqaaqyada isaga ka dhanka ah ee laga cabsi qabo inuu Xasan Sheekh Maxamuud ku soo qaado. Muddaxileedka Laftagareen ayaa hadda gabagaba ku dhow, waxaana dood ka taagan tahay xilliga la qabanayo doorashada koonfur galbeed oo muddadii 4 sano ahayd ee suurku u oggolaa madaxweynaha koonfur galbeed ku eg tahay dhammaadka sanadkan, gaar ahaan bisha Diseembar oo siyaasiyiinta deegaanku ay doonayaan in hogaamiyaha koonfur galbeed uu doorasho qabto. Balse waxaa jirta dood kale oo la aaminsan yahay madaxweyne Laftagareen oo ah in xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed ay isaga muddo kororsi u sameeyeen, islamarkaana ay isla ekaysiiyeen muddada xilhaynta madaxweynaha iyo wakhtiga dhicitaanka baarlamaanka oo kolkii hore sano kala dambeeyey, balse hadda la iswaafajiyey si ay doorashadu isku xilli u noqoto, halka markii hore sano kala dambeyn jirtay. Madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa cabsi weyn ka qaba duulaan kaga yimaada dowladda cusub ee uu hogaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud, taasi oo aaminsan in dowlad goboleedyada gaar ahaan ay cabsi weyn ka qabaan maamul goboleedyadii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka agdhowaa. Inkastoo madaxweyne Xasan uu ku tegay Baydhabo kadib doorashadiisii, uu ka ballan qaaday madaxweynaha maamulka koonfur galbeed inuuna duulaan siyaasadeed ku soo qaadi doonin, oo dowladda federaalku ay diyaar u tahay inay Laftagareen kala shaqayso horumarka deegaanada koonfur galbeed iyo xasiloonida maamulkaasi. Haddana madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa weli aaminsan in Xasan Sheekh Maxamuud uu ka fikirayo, isagoo ka shidaal qaadanaya siyaasiyiintii kuraasta ka soo waayay koonfur galbeed ee ka agdhowaa, in Laftagareen meesha laga saaro. Hase yeeshee diidmada iyo wejigabaxa uu kala kulmay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa xaalka ka sii daray kadib markii uu diiday ra'iisul wasaare Xamse inuu ku daro golihiisa wasiirada Xasan Cabdi Nuur oo hore ugu tartamay miyaha golaha shacabka iyo taliyihii hore ee ciidanka asluubta Generaal Mahad oo hadda ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Wixii intaa ka dambeeyay, hogaamiyaha koonfur galbeed ayaa bilaabay dhaqdhaqaaq ka dhan ah ra'iisul wasaare Xamse iyo sidii uuna codka kalsoonida uga heli lahayn xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed, waxaana ra'iisul wasaaraha oo maalmahan kulamo la qaadanaya xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya isagoo u qaabilayay deegaanada ay kasoo kala jeedaan, uu hadda la kulmaya caqabad kaga timid dhinaca xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed oo dhankoodu dalab ka helay madaxweynahooda Cabdicasiis Laftagareen oo ku wargeliyay in ra'iisul wasaare Xamse uuna ahayn nin wax u oggol dadka reer koonfur galbeed sida uu isagu ku andacooday. Sidaas darteedna loo baahan yahay inaan codka kalsoonida la siinin ra'iisul wasaaraha magacaaban mudane Xamse Cabdi Barre. Kulamo kala duwan la qaatay xildhibaanada baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uuna taageero ka helay xildhibaanada deegaanada Somaliland, Galmudug, Hirshabelle iyo Jubbaland, wuxuuse la kulmayaa caqabad kaga timid xildhibaanada Puntland iyo koonfur galbeed, si gaar ah xildhibaanada koonfur galbeed oo qaarkood ay la safteen ra'iisul wasaaraha. Haddana waxaa jira kuwa ka warsugaya wadahadallada aan midho dhalin ee lagu kala kacay ee kol hore uu furmay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Laftagareen iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Qorshihii maanta oo Arbaca ah lagu horgeyn lahaa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa dib u dhacay kadib markii uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u daahay waddanka Isu taga Imaaraadka Carabta oo uu safarkiisii 2 maalin ahaa waqti dheeri ah qaatay. Waxaa
sidoo kale arrinta kulankii maanta golaha shacabka lagu sababeeyey gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo safar ugu maqan ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre in la horgeeyo golaha shacabka ayaa lagu sheegay inay la xidhiidho khilaaf weli ka jira gudaha golaha shacabka maadaama uusan ra'iisul wasaaruhu codka kalsoonida oo dhammaystiran ka helin dhammaan xildhibaanada oo ay jiraan xildhibaano diidan in ra'iisul wasaaraha meel mariyo labada deegaanba waxay ku andacoonayaan arrimo la xidhiidha doorka ay ku yeelan doonaan xukuumadda cusub dhanka Puntland waxa ay xildhibaanadoodu ku xidhan yihiin Siciidane oo kursiga ra'iisul wasaaraha isagu raadinayay balse waayay kaasi oo aaminsan in ra'iisul wasaaraha cusub uusan waxba soo kordhin doonin halka kuwa koonfur galbeedna ay ku xidhan yihiin madaxweynahooda Cabdicasiis Laftagareen oo isagoo aaminsan inuu qondo ku yeesho golaha wasiirada haddii uu ra'iisul wasaare Xamse doonayo inay xildhibaanada koonfur galbeed siiyaan codka kalsoonida qodobkaas ayaa warkeena ugu dambeeyay sidaas iyo nabadgelyo.